بسم الله كل لبا مالين nooga socday hotel Maka ee magaalada Kismaayo ay noo qabatay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska ee Jubbaland ayaa waxa ka soo baxay baaq kulanka wada tashiga haweenka ka qayb qaadashada siyaasadda iyo u doodida xaqiijinta qoondada haweenka baaqani oo ka kooban 4 qodob hadii aan kala sii qaado koow madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam waxaan ka codsanaynaa inuu xaqiijiyo qoondadii dumarka ee ku qeexneed dastuurka Jubbaland 15% iyadoona hiigsanayno 30% qoondadii haweenka Soomaaliyeed madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland waxaan ka codsanaynaa inuu xidho kuraas u gaar ah hablaha Jubbaland ee musharaxiinta ah lambar 2 guddiga madaxa bannaan iyo xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland waxaan ugu baaqaynaa inaynan qabanin beeshii kursigeeda ku soo dari weydo gabadh waa inay fiiro gaar ah u lahaadaan odayaasha dhaqanka si loo xaqiijiyo qoondada dumarka guddiga madaxa bannaan waxaan ka codsanaynaa in uu sameeyo tixgelin gaar ah haweenka musharaxiinta ah si loo xaqiijiyo qoondadii dumarka lambar 3 odayaasha dhaqanka waxaan ugu baaqaynaa inay meel mariyaan xuquuqda gabdhahooda siyaana codkooda iyagoo aan u fiirinaynin dumarnimo iyo xaas nin kale ay u dhaxday odayaasha dhaqanka waxaan u sheegaynaa inaan ka aqbalaynin marnaba wax ka yar qoondadii ku qeexnayd dastuurka Jubbaland hiigsigeena uu yahay qoondadii 30% ee haweenka Soomaaliyeed qodobka afraad waxaan cadeynaynaa inaan garab taaganahay mar walba nabadda horumarinta iyo midnimada shacabka reer Jubbaland waxaan ugu baaqaynaa bulshadeynta reer Jubbaland inay garab istaagaan dawladda kana caawiyaan nabadda horumarinta iyo isku duubnida shacabka reer Jubbaland wabillahi tawfiiq intaas ayuu ku eegay